magaalada Gaalkacyo anigu goobjoog waxaan u ahaa bilaha flag guuleedin la oran jiray baa barasab looga soo dhigay dadka Gaalkacyo isugu yeeray magaalada wada dhagaxa ah waxa la rabaa ciid guduudan in laga dhigo iyadoo dhan shaqaalaha dawladda todobada shaqada la gali jiray ilaa labada duhurnimo wixii shaqada dawladdu 6 saac bay ku egtay intii dawladdu ay lahayd labada saac iyo inta ka dambeysana waxa lagu deeqayaa qof waliba oo Soomaaliya degan Gaalkacyo inuu xoogiisa ku deeqo dawladda maanta jirto Puntland iyo dawladdii gobolka Mudug ka jirtay oo waaga dawlad ahaan dawlad dadkeedu israacsan yahay amarkeeduna socdo bay waaga ahayd oo aan burbur ku dhicin laakiin maanta dhaqaalaha la hayo tara xoog badan anigu dadkii joogo iska wax qabsada ka shaqeyn jiray baan ka mid ahaa baabuur dawladdu leedahay waxa shaqeyn jiray oo ciidda ku guuri jiray gaari la yiraahdo maas oo saxadiisu alwaax tahay oo ciidda markii lagu guro ciiddu inta badan u dhexda ku soo daadiyo iyo baabuur la yiraahdo daf iyo mirq labada baabuur baa dawladdu gobolkan ka lahayd hal iska roga ah oo dawladdu leedahay ma jiro waxaan ku jiraayaa buu yiri in dhir laga beero Gaalkacyo ay hoos yeelato guri walba waxa lagu amray hortiisa inuu geed mirmiriya ku talaalo amar dawladeed ma isku tashigaas oo ahaa hadeer hal ku dib buu lahaa lagu raro oo alaabta lagu qaado waxay adwaari maysidii waa ka haraway waa ka haraway hadda jidka aad aragteen oo leeyahay soddon laba cagaf oo wasaaradda hawlaha guud leedahay iyo degmooyinka afar degmo ee magaalada Gaalkacyo ahayd degmooyinka maalin walba leeyahay degma cagafyada la shaqeynaya baa lagu faray wasaaradda hawlaha guudna labada cagaf bay lahayd jid laba way ah oo furan oo quruxdiisa adyaab u dhimanaysa baa laga falay xaafadda wada jir Gaalkacyana marba suuqeeda dhexdiisu wuxuu wada noqday ciid gaduudka aeroboortka oo kale maanta waxaan leeyahay dhaqaale ururinta ha lagu daro in iska wax u qabsadii la soo celiyo oo dadka kii aan lacag bixin karin oo iska wax u qabsadii ka shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo fakarka keentay waana mid aanu sugaynay waxaan rabnaa inaanu iska wax u qabso iyo hadii alla idmo iyo dhaqaalaba inaanu u dhaqaaqno oo gobolka horumarkiisa aanu u dhaqaaqno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.